السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وذاكرة كاتب أكاديمي كبرتين وصارسان تكنولوجيا دقيقة ما تجي موضوع دير سارية تكملة أو أنت خير من اليوم كنت قيد تسوي بيسكس كار waxaan barayna sida loo hagaajiyo fiidada internetka internetka loo yaqaano sidoo kale waxa muuqaal ku daawan doontaan xogta ku saabsan kala iyo wax walba loogu baahan yahay markaad sameynaysid internetka waxaad baahanaa dheerayna waxaan ku daawan doontaan ku shaqeyn doonaa muuqaalka gudihiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan salaamada wadayaal kusoo dhawaada khiyaar sharafta leh. maanta waxaan rabaa in idin kala dhigo KitKat networking basic tools ka u baahan tahay marka aad sameynaysid internet cable-ka fiilada internetka marka xiriirinaysid waxyaabaha u baahan tahay inaad isticmaashid ee muhiimka ku ah waad ku ogaan doontaa muuqaalkan qaybta kale fiidiyogan waxaad ka arki doontaa anagoo sameynayna fiilada internetka. tani waa markii ugu hore baash u horeysaad ku jarnaysid fiiladaada inta aad rabtid inaad soo muujisid baad ku jaranaysaa. waxaa kaloo asaasi asagana u baahan tahay bahashan hadda aad arkaysaan waxaa loogu talagalay marka aad soketka gelinaysid fiilada internetka ee darbiga gelinaysid baa lagu cadaadiyaa. wax kaloo ku xiga muhiimka ah waa testerka. bahashan hadda arkaysaan ayaan soo wadno waa testerkan waxaa loogu talagalay inaad ku tijaabiso fiiladaada inay ku saxan tahay in kaleento oo connectionka uu ku hagaagsan yahay waa lagu ogaadaa. waxaana RJ-ga isticmaalin anagoo RJ45 testerka markaad isticmaalaysid waxaad awood u leedahay inaad u adeegsatid RJ45 and RJ11 labadaba. kan waa RJ45 ka anaga aan ku isticmaalina fiidiyowga qaybtiisa dambe aad arki doontaan. tanina waa bahasho ay ka sinaysan fiilada original tahay internet cable oo qaybta asaasi u ah networking waxaa hagaajinaa fiilada internetka waxaana isna kitkaas loogu talagalay networking basicska waxaan isticmaalnaa fiilada loo yaqaan category 6 ama cat 6. haddana waa kan fiiladeena jaranayna iyo qaabka ugu baahanahay kitka oo dhameystiran oo wax walba basic ku jirana waa kaas shashada ka aragtaan. waxaa markasta muhiim ah inaad haystid RJ45 ka testerka iyo crimping toolka in kale waad ka maarmi kartaa haddii aad isku heshidna way fiican tahay. fiilada waan jaranaynaa markastana inaad si taxadar u jirtaa oo haboon si aan dhaawac kaaga gaartay kala shaqadaad baa dib ugu soo noqonaysaa. labada dhinac markaad soo jartid markasta waxaa fiican inaad wax yar ka durugtid sababtoo ah waa la jari doonaa hadhow waa lala ekeysiin doonaa RJ-ga soo qaybtaas dhexe waa inaad jartaa sababtoo ah hadhow markaad fiilada isku aadinaysid ee isticmaalaysid RJ color codeska way ku dhibi doontaa. soo waxaa hagaagsan ama fiican inaad iska jirtid. waa kana RJ makerka ama crimping toolka markastana taxadar waan jaranay marka fiiladeeni waxaa hagaagsanayna colorska waxaa jira si ay isku raacaan. tusaale ahaan color codeka RJ45 waxaa weeye marka fiilooyinkeena hal mar baa hagaagsanayna sababtoo waxaa rabnaa kalarada saxno. fiilada marka hore waa twisted unshielded twisted waa UTV waa fiilada isticmaaleyno. soo waa inaad marka hore inta aad يعني laabka ka bixisa sababta way isku laaban tahay marka ka dambe hagaajid kalar kasta aad sameysid yani kalar kasta ma aha laakiin hadda waxa weey inaad furfurtid marka hore maadaama ay twisted tahay markaad sintid ee afafkeeda sleekaysid waxaa jira RJ color connection. soo saaragtaan hadda fiiladeena ayaan furfuraynaa oo waxaan ka dhigaynaa qaab siman oo isla eg kadibna waxaan isticmaalaynaa anaga RJ points ka isticmaalayna oo waxa weeye T568B baa la dhahaa. waad arkaysaan waa hagaagsan waa isla ekaysiinay dartan waxaan saxinaa color code-ka oo ah T568B. soo marka waxaa jirta color code-ka si ay isku raacaan fiidiyowgan waad ku arki doontaan. waa ka sida isku raacaan kalaraanta hadda ayaan sharxi doonaa. waxaa leenahay white orange kalarka white orange kadibna waxaa leenahay orange markaas ku xijin haddana waxaa soo qaadanaa white blue green white brown. soo waxaa rabaa markasta inayna kaa khaldamin waa inaad farta xoog ugu xijisaa suulka ka dambana isla ekeysii cabirka ugu eg waa inaad jarataa markasto RJ-da markasta waxaa haboon inay gudaha uga shafiilada ee si fiican ilkaha ay u buuxiso. marka gaas shaqadaas socoto markasta waxaa fiican inta kugu filan inaad jaratid waad kale marka waxaa sameyn kartaa dib u jar wax yar la ekeysi RJ-ga markasta soo qaad ku baraawe sida video ku arki doontaa anaga waa sameynaynaa. soo dhammaan process-ka la wada maraayo sidaas waaye haddaad inta hore soo fahanto kana waad ku fududaan doontaa insha Allah sidaas aad isku ekeysiinaysaa. waa ka hadda fit bay anaga noqotaa sida qiyaasayo marka dambe aad sameynaysid kalaraantiska sax. haddaa kalaraantis saxin connection-kaaga ma hagaagayo ama maba ku shaqeynayso testerka markaa gelis fiidada markasta waxaa fiican inaad gudaha u gelisid. soo anaga waa aragtaa wax yar bay naga dheer tahay haddana mar kalba in yar ka jarayna aad u badnayn. isla socod wanaagsan guys.
soo hadeertaan wax yar baa jaraynaa maadaama ay afka wax yar naga sanoo galweysay markasta waxaa la rabaa in ay arjeega ilkaheeda iyo fiilooyinkaaga ay aada isku galaan haddii ay isgaari waayeen waxaa dhici karta inay mid ka boodo ay dib u noqoto ama nambar dhan ay ka tagta aysan shaqeynaynin soo hadeertaa waad arkaysaa fit bay anaga nagu tahay markasta qaybta labaad ba hadda usoo gudubnay soo processka la maraya akhyaari waa isku process baa la maraya markasta taxadarkaaga ha bato qalabkii la isticmaalo baa la isticmaali doonaa qaranta sida iskugu aadinaya waa idiin sheegay waxa la isticmaalayna waxaa waaye T56B oo ah RJ points ka isticmaali sid noocaas waaye anaga ka isticmaalayno fiilada marka hore inta waxaa waaye UTB category 6 oo waxaan loo soo gabeeyay unshielded twisted bird oo ah cat 6 so waa inaad jarataa fiilooyinkaaga aslihaysiisaa maxaa ku leedahay colors codes ka isku raacaan hadaa marka dhanka ku celiyo kalaanta wax isku raacayaan white orange white green blue white blue green white brown marba hadaad intaas saxatid arjegaaga iyo fiiladaadana ay isqaataan connectionkaaga waa uu shaqeyn doonaa markasta adoo iska hubi si wanaagsan iskugu aad colorska tartiibkaaga markasta waxaa habban si taxadar leh oo simansid waa hadii kala shaqadii aad samaysay baa dib kugu soo noqonaysa isla processka baa maraysa kalaanta waa iska hagaajinaysa arjeega markastana waa hubinaysa inuu piniskiisa afafkiisa ay ku aadan tahay internet cable-kaaga marka hadaad inta samaysid asagana wuu ku shaqeyn doonaa insha Allah hadda waa arkaysaa khiyaaray last process baa soo gaarnay soo وكاسة داوشة ونكسر وحرجينا واحد بدن كفهم دون عشر كودنا في عدانه هذا نوع حسبنا إن عن حكوا كل جنو في لدينا أرشيجها عن في لدينا الإنترنت كنا أرجيد أنجليني أسكول خانو marka waa kaas asla socod wanaagsan marka waan la ekaysiinay waa kaas si kasta isku daydid inaad jeedid kama baxayso sidaas baa loo in adigana ku noqdo marka aad sameynaysid practicada aad u daabo marka hadda waxa isticmaalna godadka loo baahan yahay godadka aan loo baahnayn baa idin sheegi doonaa labadaas god maxaa ku raday isku xigta aad waa loogu baahan yahay midka kaleentana loogu talagalay anaga fiila isticmaalna waa RJ45 soo baalkeena markasto waa in aan ka dhiganaa starting aan geynaa وكاس تساعد wanaagsan fiiladeen aad way shaqeynaysaa hadii adigana waxa lagaaga baahan yahay inaad sidaas oo kale samaysid marka fiiladaada saxantaan waxa lagu ogaan nambaranta si sax in uu tiriso aysan waxba ka boodin haddana anaga sida aragtaan teena waa sidaas oo kale bilaabay ka sabalaa salay dhamaadka way noo shaqeynaysaa sidaas oo kale adina laga rabo inaad samaysid waana mahadsantiin waxaan rajeynayaa wax badan ka faa'iido doontaan adinkana idinku shaqeyn doonto hadaa sidaa isticmaashaan